السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta muuqaalkeena maanta ama cashirkan maanta waa cashirkii labaad ee Photoshopka waxaana ku sameyn doonaa ama cashirkan aan ku baran doonaa qaabka loo sameeyo boorarka meheradaha tusaale sidee qaabka loo sameeyo boorkan oo kale ayaan sameeynaa waa boor iska saambala oo yacni si degdeg ah aan u sameeyay marka boorkan oo kale ayaan sameyn doonaa insha Allah taala marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka ka bogan doontaan sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartaan sidoo kale muuqaalkan aad like gareysaan siina share gareysaan oo la wadaagtaan dhammaan asxaabtiina aad iyo aad baad u mahadsantiin ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta hadaba okay marka hore waxaan tegaynaa file then waxaan ku dhufanaynaa new okay waxaan furanaynaa tab cusub okay magaca waxaan la baxaynaa for example board baan iskaga qoranaynaa board then waxaan ku dhufanaynaa create ifan hadaad rabto meelahan width-ga iyo height-ka waad kala bedeli kartaa oo waad yareyn kartaa tabkaaga size-kiisa waad yareyn kartaa laakiin hadda inagu maanta intaas ku diisana sidoo kale xagan waa color background-ki weeyaan waa background content-ki weeyaan haddii aad rabto mid ka rabtaad ka dhigan white black any color aad rabto marka white-kaasaan ku diisanina okay intaas wixii ka dambeeya sidoo kale resolution-ka halkan oo kale iyadana waad badin kartaa tirada rabtaad ka dhigan kartaa laakiin inta badan haddii aad badto resolution-kaaga waxa laga yaabaa inuu cuslaado project-kan aad ka shaqeynayso marka tira yar baa inta badan laga dhigtaa ifan inta badan inkastoo 300 haddii rabo laga dhigto laakiin haddana haddii aad badiso kale tusaale ahaan waxa laga yaabaa inuu cuslaado kulleydii laptop-nadu way kala duwan yihiin marka create baan leenahay okay waxaan tegaynaa rectangular tool halkaas rectangular tool ku dhufanaynaa then one select gareynaa soo okay for example intaasaan ku sameysanaynaa xogaa inoo soo yiri jiid meelahaas then xaggana geeskan kala gaadhsiin marka okay xaggana gidaarka ayaan ku dhajinaynaa okay hadda wadi jeedaan aan select garaysanay color baa saaran colorka saaran waa maxay waa cadaan background-keenu waa cadaan that's why ay labaduba iskugu ekaadeen marka waxaan sameeynaa colorkan ka bedelnaa inta ay noo select garaysan baan colorka ka bedelnaa marka halkeen colorka kaga bedelnaa laba meelood baad tagi kartaa xagga ay ku qoran tahay fill ayaad ka bedeli kartaa ama xaggan hoose ee rectangular-ka layeradan ku select garaysan layerka ku select garaysan ay ku qoran tahay rectangular ifan isaga laftirkiisa magaca waad ka bedeli kartaa double click baad ku dhufani then maxaad ku qoran kartaa magac baad la bixi kartaa okay for rectangular hadda inoo gudaa marka fill baad tagi xagaasaad ka colorayna ama xagga kale ka colorayna marka fill xaggana inoo dhow xaggana ka colorayna okay blue-gaas ku deynaa okay intaas markaan colorayno waxaan taabanaynaa control T then maxay noo soo baxay calaamadaas ay noo soo baxay soo aragtaan maxaa la dhahaa switch between free transform soo iyadaad ku dhufan then maxay ka dhigtay shax bay ka dhigtay soo okay kan hore u soo yiri jiid xogaa kana gadaal yar celi okay kana gadaal yar celi just iska waa iska design-ka adigu kugu xidhan yahay qaabkaad rabtaad ka dhigan hadba sidaas leedahay way qurux badan tahay baad ka dhigan okay dib noo yar celi kana xogaa hore u soo celi marka okay kana hore okay kana soo yar dabkina okay saabana ugu daa yes baan leenahay marka okay saasaan ku deynaa bayduweyn kastoo xogaa haddana xaggaas inkastoo xaggaas keeriyahay xaggana balan yar ku darnaa control T baan leenahay haddaan rabno inaan bedelo then transform-kii baan ku dhufanaynaa keen soo jiidna kana soo yara jiidina xogaa soo jeeda kana waan soo yara jiidina dhinacan dib baan u bixinaynaa dhinacan horay okay saasaan ku daynaa marka saan ku daynaa qaybtaas ayaan dhinaca ka yar la ekaysiinaa dama xogaa okay
xaggana gidaarka kale inoogu dheji then enter dhamarka. Okay, waa kaan samaysan. sidoo kale waxaan sameynaa rectangular kale oo aan isagana xaggan hoose ku sameynayno. Okay, inoo jiid geeska kale inoo gaarsii waxoogaa isagana courier jiid xaggana gidaarka inoo gaarsii marka then isagana colorka inooga bedel fill. Okay, coloreen ka dhigna kaaba inoogu daa then enter baan leenahay. Okay, enter baan leenahay. Okay, oo kaan samaysanay soo ma. hadda maxaan u baahannahay keliya inaan magacii ku qorno. text baan tegina then xagga inoo kili gare size-ka tirada inoo bedel 48 ba ka dhig. color-kana bedel caddaan ba ka dhig. Okay baan leenahay marka. Okay, maxaan ku qoraa marka for example meheradaada magaceeda. Okay, tusaale ahaan jijiga baan iskaga qornay. jijiga shop. Okay, waxaan moodaa tiradu inay aad u yaryartahay soo ma. inoo weynayda dhamma dan dhexdaa inoo dhig. xaggana ka weynay xaggana xogaa ku yarata. Okay, then enter dhe. tanu inoo bedel sorry est firmaweyna inoo dhig then okay soo ma. Okay, fartaan bedelayna color kalaan ka dhiganaa farta. Okay, color kaaba inooga dhig then enter dhamarka. oo kaas. Okay, hadda waxaan soo gashanaynaa alaabihii dameerada yaale. xageen ka soo gashanaa file baan tegaynaa open baan leenahay then hadda tan oo kale inoo soo geli 1 2 3 4 taarta inoo soo geli sababtoo waxaan rabnaa meesha inay inoo gaadho soo ma. keyboardkeeni baan tegaynaa then waa kan soo. Okay, tan horta soo gelina calaamadaas ay ku qoran tahay move toolka ku dhufan then waa drag gareyn xageed geyn xagii sawirkaan dhigayna. Okay, yaree meelahaas iska dhig marka then enter dhe. Okay, waxoogaa weliba yaro weynay meelahana soo dhig. Okay, kan waan soo gashanay soo inaga dhil gareen. Okay, ka ku xigay noo tag. Okay, tan soo jiid confirm to layer dhe then xaggan inoo kaale keliya yaree unde easy inoo yaree iyadana xaggan inoogu daa then enter marka enter. Okay,